السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal markale kusoo dhawaada channelka insha Allah videogan waxaan rabaa inaan uga hadlo frameworkyada caanka ah oo ay JavaScript leedahay video hore aan uga hadlay JavaScript waxay soo martay waaga hore waxay ahaan jirtay pop-up bas lagu sameyn jiray waxyaalahaas laakiin khatar ay noqotay very powerful sababtoo ah browserada waa waxa kaliya ay aqbalayaan waa JavaScript weeye waxa kaliya ay micnaha programming language aqbalayaan waa JavaScript marka sidaa darteed waa in laga faa'iideysto waaye browseryadana waa dadku waxay isticmaalayaan populationka dadka oo adduunka dhan waxay isticmaalayaan browser marka sidaa darteed waa in laga faa'iideysto marka waxaa soo baxay frameworkyaa soo baxay saan hore uga hadlay frameworkyadan waxay ku salaysan yihiin JavaScript sababta JavaScript ugu salaysan yihiin maxaa yeelay hab kale oo ma jiro ay browserka kula xiriiri karaan waa in ay ku shaqeeyaan DOM-ka inay ku shaqeeyaan wey okay so laba article meeshaan fiiriyay so mid kasta wax gooni ayuu leeyahay kan hore wuxuu ka hadlayaa waxyaalo micnaha kuwa ugu waaweyn uu ka hadlayaa kuwa waaweyn waxaa ka mid ah React horta number 1 waaye React horta marka la fiiriyo ayada waa very powerful way waa number 1 of course sababta number 1 tahay because company aad u fara badan isticmaalo adoptionka ama habka loo isticmaalayana aad ayuu u batay haddaan ka hadlo React basically waxay tahay qofkan hore u aqoonin React.js React waxa weeye waa library ay lagu dhisay JavaScript oo loogu talagalay in lagu dhiso website ama application lagu dhiso waxay leedahay wax la yiraahdo components leedahay goolkeeda micnaha waxa ay ku salaysan tahay dhan waa components wax la yiraahdo waa components waxa weeye waa waxyaalo kooban oo sida camal hal qayb oo kooban camal oo code ah oo loogu talagalay wax gooni inay qabtaan React waxay kale oo xoog powerful ku tahay waxay leedahay way fududahay micnaha barashadeeda horta number 1 waxay kale oo leedahay routing leedahay wax la yiraahdo waxay leedahay ilaahay ku roon yahay waxay leedahay data si loo maamuli lahaa way leedahay oo waxay leedahay state management wax la yiraahdo inkasta oo ayada state management ku imaado un ahayn mid aad u fiican laakiin isla markaas waxa ku maamuli kartaa informationka database ka soo baxay marka shaqadii backend oo dhan ay ka qaadaysaa kuwa kale oo aan ka hadli doonana kulligood waa very similar waa mid kasta hab gooni ayuu wax u sameeyaa laakiin React is very powerful waa waxaan dhihi lahaa mid ugu khatarsan ayay tahay inkastoo qof dad qaarkood dhahan Angularna is up there okay so Angular 2 marka Angular 2 is very powerful aad baa loo isticmaalaa of course Angular 2 Google aa soo saaray Reactna waa Facebook Angular marka ayada waxay uga duwan tahay React waxa weeye waa qaybta view-ga so waxaa maqashan MVC baa maqashan soo ma MVC waa model view controller hadda koorna dhowr jeer aan ka hadlay React waxa weeye waa qaybta view-ga bas laakiin Angular waxa weeye waa all everything way waa qaybta view-ga modelkii iyo controllerkii wixii dhan way leedahay waa one package weeye oo loogu talagalay in data lagu maamulo lagu dhiso lagu habeeyo all you have to do is just connect to the database and then you're good to go and then waxay dhan maamuli kartaa waxaa uga fiican tahay waxyaala uga fiican tahay jirto JavaScript andii lahaa React uga fiican tahay waxaa ka mid ah for example horta way iswadataa waxyaalo badan ay leedahay oo aadan u baahnaanin inaad library wax raadsato waxay kale uga fiican tahay TypeScript ayaa lagu dhisay Angular inkastoo hadda tahay in si yar bedesho wax yar TypeScript lagu dhisay oo aatana TypeScript qofkaan aqoonin waxa weeye waa TypeScript waxa weeye waa JavaScript oo kale laakiin wuxuu uga duwan yahay waa JavaScript oo type checking wax la dhaha leh wuxuu ama waa strong typing wuxuu leeyahay meeshii aad iska qori lahayd wax oo JavaScript waxay ku ogolaanaysaa inaad wax iska qortid oo iska wadatid waxaaba way ka duwan tahay TypeScript waxay uga duwan tahay waxoogaha way ka habaysan tahay si haddii loo fiiriyo JavaScript oo way micnaha waxay ka leedahay maamul fiican wax sida loo sameynayo si hab gooniya loo sameeyaa iskama wadan kartid wax TypeScript markaa isticmaalaysid waana inaad u sheegtid wixii yihiin marka waa inaad type declaration wax la samaysid waa sida camal qof dadka Java isticmaalo way waa inaad dhahdid waxaan waa int waxaan waxa weeye waa string way waa you have to inaad sheegtid waa wixii ahead of time inaad sheegtid waa laakiin once aad si fiican u isticmaashid very powerful waa dadka strong typing languages dadka isticmaala ayaa si fiican u yaqaano JavaScript strong type language ma aha JavaScript waa wishy washy
si haddii loo fiiriyo waxaa luuqad waxaa waaye I don't care camal war waxaa rabta u samayso aniga waxba igama gelin camal ee luuqad ah waa JavaScript waa luuqad micnaha si haddii loo dhaho anshax aan lahayn waaye laakiin JavaScript anshaxaas inaan lahayn way powerful waaye markaas waxaa u malaysaa in loo design gareeyey inaynan anshax lahaanin in loo design gareeyey oo ay ku leedahayba power intaasay ku leedahay maxaa yeelay saarta wax u qori kartaa kuma dhahayso saan wax u qor kuma dhahayso waxay ku leedahay okay waxaa rabta qor laakiin gadaal markii hadhowdii aan raangareynayo oo enginekan ku raangareynayo waan kaa fiirinayaa haddii wax kaa qaldan yihiin markaasaan kuu sheegaya laakiin kuma sheegaya markaa type gareynaysid laakiin TypeScript waxay uga fiican tahay JavaScript markii aad qoraysid wixii oo ku qoraysid editorka iyo hore kaaga sheegaya insha Allah TypeScript lafteeda waan baran doonaa insha Allah mustaqbalka casharaan ka sameyn doonaa TypeScript is very powerful marka Angular saas ayay uga fiican tahay waxyaalahaas ay uga fiican tahay React laakiin React lafteeda waa simple way fududahay markii aad React actually soo download garaysatid waxaa ku soo baxay file yar oo wax yar ku jiraan oo dhowr file ku jirta and that's it laakiin Angular markaa soo shubatid it's much more files way okay and Vue.js marka Vue.js na waa framework kale ay leedahay JavaScript and Vue.js habkay uga duwan tahay labadan kii hore wuxuu MVC isticmaalay Angular and Reactna waxay isticmaalaysay components waxyaalahaas waana Vue-ga bas weeye Vue.js of course magaca ka garanaysaa Vue-ga waaye waa qaybta Vue-ga ma ahan model iyo data iyo wax shuqul kuma laha Vue.js waxay ku fiican tahay ayada way fududahay inaad baratid waa haddaa JavaScript taqaanid waxaa ku baran kartaa less than a day ku baran kartaa Vue.js marka Vue.js waxaa weeye waa Reactigi iyo Angularka isku dhex jiro laakiin oo la fududeeyey wey it's much simpler aad ay uga fududahay waxaan dhihi lahaa qofka hadduu frameworkii hore u baranin Vue.js ku bilaabaan dhihi lahaa aniga waxay ku qaadatay less than 2 days inaan application simple ku dhiso marka insha Allah taasna waa mustaqbalka markaan React waxaas ka gudubno kabacdina Vue in tus doona hadduu ilaa yiraahdo and it's really simple waxaa weeye waxaa sameynaysaa inline JavaScript basically waxaa gelinaysaa HTML-kii it's really simple aad uga fududahay and file size-keedana waa aad u yaryahay oo markii aad soo download garaysatid waa very simple way waa file-kii dhan wuxuu la mid yahay dhowr file oo yar abisaa ku jiro meesha and that's it intaasaa ku bilaabaysaa laakiin waa sii weynan kartaa waxaa kaloo jiro Meteor and JS mid la yiraahdo aniga ma isticmaalo Meteor laakiin it's very powerful saa maqlay waa sida meesha ugu jeedaan waa full stack framework maxaa laga wadaa full stack framework waxaa weeye waa framework waxay dhan wadato waxay wadataa back endigii front endigii database-kii si lagu maamuli lahaa everything ay wadataa ma u baahnid wax kale waxay leedahay waxyaalo la yiraahdo packages ama plugins ay leedahay oo loo isticmaalo laakiin waa very powerful Meteor waa arkay few videos oo loo isticmaalayo arkay marka haddaad aragtid wax oo iswato dhammaantiis Meteor is good framework khatar ah weeye waqti badan kuma bixinayna because I don't think inaan ka sameyn doono 10 Meteor laakiin waa wuusi marka Meteor waa sidaas way iswadataa dhammaanteed laakiin waxaan dhihi lahaa ka fiirso markaad isticmaalaysid waxyaalo waxay leedahay oo drawbacks waxaan framework kastana wuxuu leeyahay wax micnaha uunan ku fiicnayn marka ka fiirso inta aadan micnaha 100% aad madax iskugu tuurin ka fiirso laakiin Meteor waa very powerful kan ugu caansan ma adduunka laakiin waa khatar wey Ember wax badan aan maqlay it's one of the best frameworks oo markii la dhaho Vue.js ka soo sokeeyo marka Ember waxaa lagu yaqaanaa in ay tahay framework very powerful laakiin waxyaalaha micnaha ay dadka qaarkood uga cararaan waxaa weeye habkii ayaga rabaan haddaadan wax u sameynin xoogaha ma jeclo in ay micnaha aad ku jirto meesha marka waxay rabaan hab ayaga wax u sameeyaan instruction code inaad raacdid laakiin haddaa aad raacdid habkii wax u sameeyaan is very powerful waa one of the best way I think like number 4 or 5 camal weeye markay noqoto frameworkyada waa very easy to learn way fududahay barashadeeda waxaana lagu raacsiinayaa habka ay wax u sameeyaan waxay leeyihiin waxyaalo oo package
So here it says the command line package Embler opens the whole new world to a useful tools. waxyaala waxay leeyihiin ayaga ay samaysteen oo scripts camal ah oo aad soo baxsanaysid ama tools ama toolkida lahaa si aad u isticmaashid. marka Amper is nice, way fiican tahay, waa option kale. JavaScript waxay leedahay framework carada ka badan, so haddii aad midka aad jeceshahay ka qaado, haddii aad mid hore u isticmaasho kaas ku soco. They're all similar, laakiin midba wax buu powerful ku yahay. Backbone iska jirto, Backbone waa old style way, waa hore jirtay actually markii ay soo baxaysa xataa JavaScript. Backbone waa frameworkada ugu horreeyay ahaayeen oo soo baxo. marka that's all I can say about Backbone. waxaan dhihi lahaa Backbone xoogaa hoos isii socotaa caan ahaanteeda, laakiin waa one of the old ones way. waxayna ku fiican tahay dadkii ka shaqaynayay waqti dheer ay kasoo shaqaynayaan, marka dhibaatooyinkii wixii ku jiray oo dhan way ka saareen. So waa very stable framework. company aad badanna way isticmaalaan. tan oo kale iska jirto framework, qofkas framework cusub iska soo saaranaya. So what am I supposed to do? So Ayera no waxaa lahaa Arela waxaa weeye waa ayadan framework waaye. Actually it's waxaa la dhahaa waxay caan ku tahay Arela waa frameworka ugu yar frameworkyada. It's the smallest framework out there way, saasaa lagu yaqaanaa. waxay leedahay very very simple syntax ay leedahay. waan arkay couple of videos, waan arkay. waxay ku fiican tahay ayada, waxay la shaqaynaysaa any framework ay la shaqaynaysaa. So Arela haddaa qaatid waa la shaqaysiin kartaa React ama Angular, waa dhexgelin kartaa si macnaa easy oo la shaqaynaysaa. So waxa weeye waa very liberal maa lahaa, waa qof kastaan la shaqaynaa camal waa sheekada. So saasay ku fiican tahay. waxa weeye waa MV way, waa model view. So that's another thing to keep in mind. So yeah, that's Arela. I never used it, laakiin waxaan dhihi lahaa in la baraaweeyo wax kasta iska fiican. Okay. Polymer waa maqlay boqol jeer. Actually YouTube-kan hadda daawanaysid oo video meesha ka daawanaysid, YouTube waxay isticmaalaan Polymer sababtoo ah Google ayaa soo saaray Polymer. waxay u soo saareen in ay macnaha ay u isticmaalaan waxooda, laakiin waxay ka dhigan open source. marka waxay ku fiican tahay ayada, waa very very fast. speedkaas ayay khatar ku tahay. Google-na waxay rabeen in ay soo saaraan. Actually marka hore Google waxay u soo saareen just it wasn't even a framework or library waxa ma ahayn, it was just waxay soo saareen. laakiin markii dambe markay arkeen dadka inay u baahan yihiin ayaa isticmaalkeeda la bilaabay. marka waxyaalahan pointyaal meeshan ka sheegayaan waxay leeyihiin as with the other frameworks with which project large companies, the fact that Google maintaining Polymer is more good thing. So waxay leeyihiin Google ayaa macnaha gacanta ku haya, marka I guess that's a good thing. waxay kale oo ku fiican tahay progressive web apps-ka waxaa la yidhaahdo PWA. waa future-ka website-yada weeye, mustaqbalka website-yada PWA ay u socdaan dhinacooda. waxaa kale oo jiro saan sheegay waa lightweight way, just because framework-gan looguma talagelin in wax badan handle gareeyo. so haddii aad tagtid camal YouTube camal haddaad tagtid waa arkaysaa waxaa qayb ka mid ah waxay ku dhisan tahay Polymer. So those are the main ones. Mithril iska jiro. This one is very simple, small one, the smallest size. Okay, so that's framework. Waxaan soo kuwaasaa intana ayagoo haddana lagu sharaxayo waa kuwaana React, Angular, Ember. waxaa kale oo arkaysaa meeshaan grapha laga sameeyey oo I think waa Stack Overflow. waxyaalihii qaadeen oo maxaa la dhihi jiray surveygii ay qaadeen weeye. saa ujeedid waxa weeye waa Angular oo kind of hoos u yara socoto around 2018. waxaa arkaysaa React kor u yara socoto oo ugu weyn. waxaa arkaysaa meeshaan ilaa dugre Vue.js oo kind of like soo kacayso, iyo Ember oo kind of flat iska arkaysaa hoos iska socoto. inta waxaa arkaysaa sida loogu jecel badan yahay frameworkyada. ujeedada dadka aad waxay u jecel yihiin React, Vue.js ku xigto, and then Express, Sprint. So these are different frameworks waaye oo of course ASP.NET meesha ku jirto, Django oo Python.
but as you can see React is number 1 dadka aad loogu jecel yahay React because it's very powerful inta marka waxaan rabay actually let's skip this one we can skip with this one and we can skip kana ka gudbi karnaa inkasta oo I think magaca hala Slevet I'm not sure sida loo dhaho because anima isticmaali it's a different way hab kale wax loo sameeyo way aydan waa of course waa JavaScript framework laakiin hab kale waaye oo sidii ay uga fikirayeen systemyada kale ugamay fikirin waxay sameeyaan ayaga compile ay sameeyaan so markii aad samaysid HTML iyo JavaScript-igi kaba soo qaad camal sida React camal u sameysay waxay sameynayaan compilation ay sameynayaan waa la isku dhex darayaa code-kii oo dhan waxaa laga soo saaraya marka hal wax bes laga soo saaraya marka sidaa darteed no virtual DOM oo dhan lalama hadlaayo because React waa garanaysaan it reacts to the DOM-ka isbedelkiisa and tan waxaa marka waa simple waxay code-gaadii qaadaysaa waxay ka dhigaysaa JavaScript ay ka dhigaysaa and then uma baahni markaas DOM-ka iyo wixii inaad manipulate karayso already wixii waa manipulate karaysan yihiin waa kusii habaysan yihiin so once you compile it it's one of the fastest way so Slevet is coming up it's one of the big ones had soo socdo way and Grindstone waa maqlay waxaan ka maqlay but I'm going to skip that one waa ka hadalna kan so labadaan raba xoog inaan uga hadlo Gatsby iyo Next inaan ka hadlaan raba labadan oo xoogaa waqti yar ku bixiyo I will say aad baan oo la talin lahaa dadka raba in ay sameeyaan website-yada in ay fiiriyaan Gatsby iyo Next in ay fiiriyaan waa very very powerful I will say completely wax kasta way bedelayaan when it comes to markii noqoto web development-iga Gatsby waxaa loo isticmaalaa waxay tahayba sida dhammo waxaa weeye waxaad dhisaysaa React iyo GraphQL application ama website aad dhisaysaa adoo isticmaalaya React GraphQL yaa dhisaysaa ama markaad dhistay kabacdi waa build ayaad ku sameynaysaa you build it so building waxaa weeye waa inaad wixii render garayso you know hadda video markaad samaysid camal videoga haddaad rabtid inaad isku dubiridid ood ka dhigtid hal video waa inaad render garayso soo maaha sidaa darteed Gatsby waxay sameynaysaa waxay qaadaysaa informationkii database-ka laga soo qaatay oo informationkii qoraaladii wixii oo dhan and then iyo waxay qaadaysaa habkii adiga aad rabtay inay u render garayso kadibna waxay ka dhigaysaa static website ka dhigaysaa so Gatsby waxa weeye waa static site generator waxa la yiraahdaa SSG and waa very very powerful very fast waa very fast markii la fiiriyo website-yada and website-ka haddaad rabtid dhaqsiin dadka ugu soo baxaan wax then I will say Gatsby isticmaal waa basically waa WordPress for JavaScript way so sida WordPress loo isticmaali jiraa loo isticmaalaa but laakiin waxay ugu duwan tahay this one waa static kaliya way waad render garanaysaa markastood build aad samaysid you just render ama you build and then buildigaasaad upload garanaysaa anywhere-na ku upload garan kartaa sida hosting iyo waxaas next way ka duwan tahay next similar thing ay qabataa isku waxay qabtaan labadoodaba website-yada lagu dhisaa laakiin waxay uga duwan tahay of course Next laftirkeedana React ayaa loo isticmaalaa laakiin Next waxay uga duwan tahay waa server side render way so ayada build ma sameynaysid oo buildiga micnaha waxaa weeye HTML CSS iyo JavaScript kama dhigaysid code-kii ayada waxaad sameynaysaa waad dhisaysaa code-kii aad dhisaysaa kabacdi waxaad u sheegaysaa habkay u render garan lahayd informationka wuxuu kasoo render garanayaa database-kii laakiin wuxuu noqonayaa markaas information wuxuu soo sidii camal hadda tan website-kana u jeedno ayuu usoo render garaysmaa mana ahan habka oo React camal ma aha waa hab already habaysan waa isku sii dubaridan marka way ka duwan tahay Gatsby dad badan aad u isticmaalo maxaa la jiray Next Gatsbyna waa very powerful labadooda waa similar laakiin Next waxay ku fiican tahay ayada waxay la xiriiri kartaa database-ka information kasoo jiidan kartaa kabacdina way render garanaysaa so it says here both use React syntax and have transpilation but the biggest difference between Next has SSR okay while Gatsby is SSG in Gatsby the whole application is generated in a static page and in Next each request is made new rendering of the page because this is part done by the server so Next waxa weeye informationkii oo qoraalkii wixii dhan waxaa lagu soo render garanayaa serverka kabacdi banaanka la soo dhigayaa meesha uu Gatsby uu ka yahay already wixii inta aadan internetka gelininba already uu dhisan yahayba sida waa HTML caadi ah doo dhisay camal waaye
laakiin waxaa ku dhisi kartaa react ayaa ku dhisi kartaa iyo GraphQL wixii dhanaa soo jiidan kartaa everything so wixii ayagoo habaysan yaa hal mar render garanaysaa kabacdi waxaa ka dhigaysaa HTML CSS so waa habab kala duwan wax loo sameeyo waa habka haddeeta mustaqbalka usii socdaan wax and it's very fast waa mobile friendly everything waa already habaysan yihiin so that's micnaha si labadan si u shaqeeyaan I'll say intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxyaalahan oo react iyo all this waa wax micnaha cabaar soo jiray laakiin waxaan dhihi lahaa haddeertaan ay aad loo isticmaalaa so isha ku hayaan ku dhihi lahaa casharaan kasoo diyaarin doonaa kind of micnaha ka dhiga wax micnaha aad mustaqbalka aad fiirinaysid oo isku dayaysid next couple of years haddii aad tahay developer aad gacanta la geshid waa laga yaabaa inaadan u baahnayn oo waxyaalo kala samaysid PHP developer C# developer inaad tahay Python developer inaad u baahnayn laakiin waxaan dhihi lahaa markasta waa loo baahan yahay webka markasta waa loo baahan yahay website fast website oo very reliable so keep that in mind khayran idin rajaynayaa video kale waan soo wadaa subscribe ku dhufta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته